asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waaga football show oo idinle soo dhawaada. aad baan u fiicanay haddaanay bahdaaga football show idinkana waxaad ii rajaynayaa sidaa iyo si kasii fiican. dee kolley maanta xagga waxaan u fadhiyaa canaan badan oo laysoo canaantay iyo dhalinyar badan oo codsiya soo dhiibatay, weliba codsiyadaasi ha u badnaadaan barnaamijkii waa kuma laacib oo in muddo usbuucaan aan idiin soo daynin. naga raalihaada marka koowaad, howlu waa iska yar badnaayeen, laakiin insha allah from now on waxaa idiin ballan qaadaynaa labadii niicisho inuu barnaamijku idiin soo galo haddii ilaahay idhaahdo. kole howlu waa iska badan yihiin, marka qaar ay naga dhacdo inta waanu dadaalaynaa. ma dhib yara laacibadii hore in lasoo helo, ma dhib yara macalimiinta hore in lasoo helo, haddana time loo helo, haddana dee interviewgii la qaado la dhiidgareeyo. marka barnaamijyadu waa iska badan yihiin, insha allah waanu soo dadaalaynaa. wixii hore ee dee nacminta sugayseen baan idhaahde wiigaa awiidi ka maqnaa waxaad ku ilowdaan baan idiin hayaa amba laacib aad u weyn oo bulshada somalilan magac weyn kale. taas waa midda labaad ee bahda sportska shaqo badan ka qabteenba waxyaabahu kusoo daray ilaa iyo hadda laga isticmaalo ayaanu idiin soo helnay. waxaanan aad uga mahad celinaya arrinkaa isagaa khadar iyo jamaal iyo maxamed oo ka howlgalay. waxaa kaloo aad uga mahad celinaya laacibkaa weyn ee noo ogolaaday inuuna siiyo interviewgii ugu horeeyey ee bah amba youtube ka socoto amba tv ka socoto amba anywhere ka socote ka qaada waraysi uu la fadhiisto taariikh nololeedkiisii amba ciyaaraha sportska wuxuu kusoo kordhiyey uu la wadaago inay noqoto bahda aga football show. taasina anaga sumcad iyo sharaf bay noo tahay. mar kale waxaanu leenahay laacibkiina weyn magaciisaan sheegay maxamed gahayr, aad baad u mahadsantahay mar labaad, mar saddexaad, mar afraad. marka insha allah intaanan idinkii maxamed gahayr idiin kala bixin, maxamed gahayr waxa weeye laacib gobolka uu soo ciyaaray. waxa kaloo intaa uu sii dheeroo dee uu ku mudan yahay laacibnimadiisa marka laga tago waa ninkii ugu horeeyey ee bilaabay koobka rabadaanta ee maanta sida weyn looga tixgeliya amba looga jecel yahay gobolada somalilan oo dhan. waxa uu bilaabay koobkiisii ugu horeeyey 1992 isagoo ku bilaabay 3 kooxood. 3 kooxood oo weliba aan u haynin koob uu guddoonsiiyo kooxda ku guuleysataa, laakiin maxamed gaar muxuu sameeyey kubad ayuu guddoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay. nacam si dhalinyartu u sii xiiseeyaan. sanadkii ku xigayna waxay noqdeen 11 kooxood. nacam ilaa iyo 1992gii ilaa iyo maanta barnaamijka maxamed bilaabay waa si weyn baa garoomada Hargeysa Stadium, Xawaadle, Dhalinta, Guryasamo, Tareeriska, nacam anywhere garoon ka jiro maanta Somaliland aad u aragtay rabadaan si looga sugo. hadday bahda sportska tahay, hadday odayaasha aabbayaasha tahay, hadday walaalaha nacam anyone uu sugaayo waqtiga rabadaanta sidii loo daawan lahaa ciyaaraha. marka maxamed gahayran u shakhsiyan ciyaartoy hore aan ka haayo koobka rabadaanta wahaa koob aan aad u xiiseyn jiray. waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantahay barnaamijka aad noo bilowday. deemkana waxaan sugnaaba waa inaan idiin kala baxo khadar iyo maxamed haddii ilaahay dhaa ku dhowaada. bismillahi raxmaan raxiim. daawadayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni waa kuma laacib iyo tiimka agow football show oo mar walba idin salaamaya. maanta waxaa aada ugu mahadnaqaynaa inuu codsigeena aqbalo mid ka mid a ciyaartayga u qiimaha badnaa uguna qaalisnaa soo maray geyiga somaliland, taariikhdii wadankii la odhan jiray soomaaliya iyo kadibba. waa ciyaaryahankii usoo qaaday gobolka waqooyi galbeed 1984kii koobkii u qiimaha badnaa ee taariikhiga ahaa ee soo maray gobolkeena. waxa uu ka ciyaari jiray dhinaca weerarka xagga bidix isagoo labada lugoodba ku ciyaari jiray. waxaan ogahay in fara badan oo taageerayaashiisa ka midi in ay taariikhda xusuusan doonaan marka insha allah uu inooga sheekeeyo horyaalkeen muxuu ahaye taariikhdiisii kubadda cagta. maxamed maxamuud cabdille maxamed gahayr, kusoo dhawo barnaamijka. bismillahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan dhowahay khadro. aad maxaad umahadsan tahay. inta aynaan bilaabin sooyaalkii taariikheed ee kubadda cagta oo runtii ahaa mid aada iyo aada u xiiso badnaa, waxaan doonaynaa dadka taageerayaashaada ku daawanaya iyo dadka cusub ee runtii aan ku daawan ee raba inay bal wax ka ogaadaan maxamed gahayr, inaad taariikhda in yar aada uga taabato ka hor intii aan muxuu ahay kubadda cagta aanad bilaabin taariikh nololeedkaagii hore. bismillahi raxmaan raxiim. taarikh nololeedkii hore horta ilaa yaraanteydii kubadda waan jeclaa. yaraan baan ku bilaabay
toddoba jir meelaha inaan garoomada xaafadaha horteeda ku ciyaaro garoonkii riis markaa sheekh madar deganayn markii dambe waxaan usoo guurnay xaggan goljanno garoonkan aada iyo aada ugu ciyaara xirfadayda ay aada ugu soo baxday waa garoonka goljanno. sidaan wada ognahay taariikhda muxuu hayay somalilan ama hargeysa oo markaa gobolada waqooyi ahayd may jirin san hore uga dhawaajinay in badan naadiyo sere a ama sere b sida muqdisho oo kale. halkaa waxaa ugu jiray oo malaha mararka qaarkood adoonsa way ka xiisa badnaayeen tartanadii iskuullada oo weliba sekondariyada. iskuulkaad u ciyaari jirtay iskuulkeebuu ahaa se wax guul ah oo aad la gaadhay ma jiraa koob aad la qaaday iskuulkiina? iskuulkii ugu horreeyey aan u ciyaaro wuxuu ahaa horta waxaa ku horreeyey dugsiyada dhexe oo markaa aan laakiin tartan loo qaban jirin. aduu kuwii naga horreeyey in loo qabtaan filaya laakiin waqtiga anagoon dhiganaynay iskuulladaa isku iman jiray biyo dhacay garoon buu lahaa 12 Oktoobarna garoon buu lahaa markaa way noo yimaadaan garoonkan kula ciyaarna maalin baa la balamaa labada iskuul markaa anoo yar ban ayaan ciyaaray. laakiin sida caadiga ah waxaan u saftay dugsiga Gaclibaax 1984 oo si final lambarka 9aad baan uga ciyaarayay. finalkii waxaan laga qaaday iskuulka Maxamed Axmed Cali markaa la marnayn baan ahaa. gool dhalintana waxaa qaaday Shakuur oo 9 gool lahaa ana 8 gool baan lahaa. markaa Maxamed Axmed Cali baa koobka laga qaaday Allah u naxariisto. goolka waxaa naga dhaliyay Iid nin Iid la yidhaaho Iid Xasan ciyaale 85kii markaa waxaan galay haddana waxaa laga qaatay degmada aniga iyo waxaa laga qaatay iskuulladii Gaclibaax aniga iyo Shakuur iyo nin Caatiya la yidhaha iyo aniga. maxamed Calina waxaa laga soo qaaday Iid iyo Weli iyo Libaax. markaa degmadiina koobkaan u qaadnay Berbera iyo Hargeysa iyo Gabiley iyo Boorame ahayd. markaasaa gobolka laga doortay aduu gobolkii taas way noo dambeyn doontaa. 85 baan haddana u ciyaaray anigoo heer gobola dugsigaygii Gaclibaax. Gaclibaax koobkaan u qaadnay gruubkaygu 5 buu ahaa oo sanadkaa waxaa kusoo biiray dugsiga sare Xarane oon awal ku jiri jirin. markaa gooldhalinta sanadkaa anaa qaaday marna nalagama badin macana lama bareejayn waxaan ku qaaday 11 gool Shakuurna 9 gool oo si finalkii iyo finalkiiba anaa dhaliyey dhalinta waan halyeebar kaga badinay iyo finalkii Faarax Umaran halyeebar kaga badinay. markaa saacad baa la bixin jiray beriga ciyaartooyga qaada gooldhalinta. markaa waxaa la yidhi maxamed Gahayr oo gooldhalinta qaaday iyo Shakuuroo kusoo xigay labada midna lama siinayo waa heer gobol. waxaa la siiyey nin Xasan Akiin la yidhaho Faarax Umar oo ciyaarayay oo 4 gool lahaa ayaa qaatay saacadduna aad bay u qiimo badnayd. markaa heerkii iskuul jaayisadii gooldhalinta ee ciyaaraha iskuullada ee sanadkaad xaq u lahayd waxaad ku weyd inaad gobolka usoo ciyaartay waa arrin runtii xiisa leh. taas waxay ahayd tii dhinaca iskuulka iyo degmada. waxaa kasii sarreysay oo runtii meel ugu sarreyso oo marka ciyaaraha laga gaara waxayd ninka gobolka loo qaato. maxamed Gahayr sideebay kuugu suurto gashay inaad gobolka ugu biirto? bismillahi raxmaan raxiim. 84 guulaha badana iskuulkaygii oo final yimid oon ciyaartooyga ugu cadcad ahaa iyo degmadii oon ciyaaray haddana aan iskuulka ciyaartooyga ugu cadcad ahaa taasaa laygu soo xulay inaan xulka gobolka ka mid noqdo. waxaana soo xulay oo igu soo daray ciyaartooyga gobolka kabtan Cabdilaahi Daahir Allah u naxariisto. nasiib wanaag sanadkaad kusoo biirtay waxaa sanadkii aad ku guuleysad koobka qaadeen. ma xasuusan kartaa ciyaartii kuugu horreysay ee aad adigoo u ciyaaraya gobolka waqooyi galbeed aad safato ciyaartaad soo gasho ama bedel kusoo gal ama laynabka hore baad ka mid tahayba ciyaartii kuugu horreysay aad ciyaarta ma xasuusan kartaa?
ciyaartii ugu horreysay aan ciyaaro waxay ahayd saarigii hore burco idfor markaanu kooba soo qaadi doonno. maanta waxaanu la ciyaarnay sanaag baanu la ciyaarnay. ciyaartaas ahayd burca kula ciyaarnay saarigii hore. may sanaag way naga badisay, 2-0 bay nagaga badisay. taana waxaa qaladaad badan oo iska jiray. difaaca oo nin curi la odhan jiro allah u naxariistee dee ciyaariyey 68 iyo 70 ayaa haaf loo dhiibay oo rigooro galay laakiin nasiib wanaag waan soo baxnay markii dambe. si adag baan waliba kusoo baxnay. ciyaartii burcee dambe ayaanu si adag kusoo baxnay. badis iyo bareej iyo kusoo baxayeen, anaguna waxaan kusoo baxnay badis qali ah. 1-0 ismaan waxar baa gool ka dhaliyey. si adag baa kusoo dhaafteen group stageka sidaad aad ii sheegtay ama isreebkii horeba. waxaad ahayd nin weerariyahana oo weliba baasha bidixda ka ciyaari jiray markii gobolkaad u ciyaaraysay. labada lugood baad ku ciyaari jirtay, bidixda keliya maad ahayn. inta badan khatar badan baad ku haysay difaaca kaa hor yimaada. waxaa hubaala inaad goolal badan dhalisay oo laga yaabo dee inay badnaayeen qaar kale inaad xasootaa kuga yara adkaan kartaba. laakiin goolashii aad ugu yacni aada adag tahay inaad ilowdo kuweebaa ka mid ahaa? horta markaa aan gobolka galay waa markii ugu horreysaan 11 ka ciyaaro. ciyaarteedu waxay ahayd 9 iyo 10 labadaasaan aad iyo aad ugu wanaagsanaa. laakiin 11 lafteeda dee nin xagga goysmada farsamadiisa wanaagsan tahay baan haayo dhibi uma ahayn. laakiin way kugu yaraanaysaa inaad goolal badan dhaliso. oo waayo macalinkii ugu horreeyey wuxuu igu yidhi kubadda markaad ka soo gasho xaggaha dhiib laynka soo dhig, haddaad fog tahayna soo karoos, haddaad dhowdahayna dhiib laynka soo dhig. taraarax waxba kaama gelin adiga ama ha dhalato ama hala iska daayo. aduu dhiib laynkaasu soo dhig. markaa laakiin goolal waan dhaliyey, laakiin may badnayn intaan 11ka ninkaagii dhammaa ee dhamaystirka ugu dambeeya yani ka qayb qaadan jira 9ka ahaa. markii dambe waxaa lagu yidhi adigu kubadda soo dhigo, adigu kubadda samee, nin kale ha dhamaystire. marka waa iska badashay xaaladii hore. intaad ciyaaraysay kubadda maxamedow, ciyaaro badan baad soo gashay aada u farxad badan oo aad guulo badan gaadheen. oo ciyaartii kugu farxadda badnayd ee yani xusuustaada ka goyla ciyaartay bay ahayd? ciyaartii ugu farxadda badneed waxay ahayd ciyaartii afristatekii aan koobka kusoo qaadnay finalka. ciyaartaasa igu farxad badneyd. waan ciyaarayey 90 daqiiqo iyo intii lagu daray waan ciyaarayey. 15 daqiiqo ee u dambeeyey ayaa markaanu goolka dhalinay ayaa anigii la soo bedelay si difaaca loo adkeeyo. ayaa lasoo diri dhabay waxa lasoo geliyey cismaan waxar iyo nagiib. anigii qof kaloo weeraro imkaan ilowsanahay. waxaa jirtay mar intii aad ciyaara gobolada ku beerin ka hor aad gaadhay, waxaad tagtay xamar 1983. marka intii aad gobolada ku beerin ka hor mar aad xamar gaadhay 84. marka adigoo markaa xaafad dhexeed ka ciyaaraya nin ka mid oo reer muqdishii ku arkay, sheeko xiislaadin dhex martay. sheekadaa maxaad ka xasuusan tahay? sheekadaa waxaan ka xasuusanahay 83 bay ahayd. markaa iskay baan ayanu xamar u tegey anigiyo 2 nin oo kale aan asxaabnahay. markaa waxaanu la ciyaaraynay ciyaaraha gobolladoon iman ayaanu dhalinyaro xaafadda ka asabalbalaara oo sharad baa la ciyaara xamar kubadda ayaanu la ciyaaraynay. markaa kooxdayduu ka mid ahaa. markaa cali buris baa ninkaa la odhan jiro. markuu ciyaartaydii arkay buu igu yidhi sanadkan gobolka waad soo ciyaaraysaa waqooyi galbeed markaad noqoto. aniguna waan yaraayo waxaan ninka iska ciyaarayaa adigu idfor anoo gobolkii la socdaa oo weliba dee ciyaarayo line aba ayuu ninkii arkay. ninkii wuxuu igu yidhi haddana maalin buu igu yimid wardhiigle xaafadiina lagu dejiyey. markaasuu yidhi markaa ciyaartii finalka la sugayaa maxamedow, markaad finalka qaadaan kubadda garanka igu soo tuur. garanka guushu gaadhaan igu soo tuur garanka. markaa ninkaasoo
ninkaasi nin cajiib waa runtii oo aada u aragti dheer ilaahayna u rumeeyey saadaashiisii ha marka ciyaaruhu soo dhawaadaan maxamedow ciyaartooyga waa la xarayn jiray gobolka oo waa gobolkii baa xaraysan baan maqli jirnay jawiga marka laydin xareeyo iyo marka ugu horeysa laydin soo dooniyba laydin soo ogeysiy inayd xaroonaysaan iyo markaad xarootaan jadwalkiina xilliga hurdada alimitsada inta saacadood ay qaadan jirteen si qaabka u alimiteyn jirteen qaabka u nooleedeen muddada aad ku jirtaan feersul ay xaraysan tihiin noocee bay ahayd horta xarayntu waxaa ahayd ciyaartooyga cusub horta dee kabtanka ayaa baasku kabtan buu lahaa orodadu kabtan bay lahaayeen kabtankaa dooni jiray marka dee ciyaaraha iskuullada uu ka arko ciyaartooyga ayuu aqal ka dooni jiray laakiin ciyaartooygii hore u safan jiray waxaa jirtay meel la iskugu yimaado isboortiga guddoomiyahoogu fadhiyo marka halkaasaa lagu ogeysiin jiray in la xaroonayo nin walba wakaalayo alaabtaadii soo qaado soo xarood markaasaa lagu soo xaroon jiray nolosha iyo habka loo qaadanayo tababarka waxaa ahayd horta nolol fiican bay ahayd ya xagga nolol ahaan qofku uu ku noolaanayo hurdadiisa cuntadiisa wixiisoo dhan waxaa ahayd wax dhammaystiran alimitaduna waxaa ahayd iyaduna jadwal bay lahayd subaxii 4 habeenimo oo nalagen jiray meeshan la yidhaahdo maqaaxida inanta basas intan lagu geeyaabay basasku iska iman jireen orod baanu ku iman jirnay markaa garoonka terroriska marka ama terroriskaanu jimicsiiyo xoogaa yar ku samayn jirnay ama dooxa aduu 9 waxaan tegi jirnay xerada waanu quraacan jirnay oo seexan jirnay waxaan la kicin jiray haddana 3 barka galabnimo istaadonkii ya saasuu tababarkaygu ahaa marka aad inta badan xaqan ku ciyaarteen sareebka hore halkan waxay xaqan ku ciyaarteen inta badan waqooyi galbeed iyo burco togdheera awdal markii dambe awdal la magacaabay gobolka awdal iyo gobolka sanaag inta badan idinka waa bixi jirteen markasta marnaba halkan ku meedan soo harin marka halkaa tagtaan xamar qabataan waxaa iman jiray gobollo badan oo runtii kubadda aada u yaqaanay haddana markasta ama final baa timaadaan marka ugu dhowdihiin semi final ayaa timaadaan iman jirteen haddaba maxamed markaad ciyaarayso adigoo weerara ninka aad odhan jirtay had iyo jeer uu kugu adkaa difaacyadaad ka hortagtay marka koonfur laga soo ciyaarayo istaadium muqdisho kumuu ahaa horta runtii difaacyadu nin gosmadiisu doorta balaayo khatara ay ahayd baan haayo iyagaaba iga sii welweli jiray laakiin ninka ugu adkaa difaaca wuxuu ahaa nin u ciyaari jiray kismaayo lambar 2 weliba 11kan ka ciyaarayo haafkiisa soo hin jiray waxaa la odhan jiray kaduunka ya dhowr nin ku jibiyey garoonka ya jibina ciyaartooy banaadira isagoo jibiyaana daawanayay oo bila la odhan jiray oo banaadir u ciyaarayay marka ninkaasu كل عيارتي قبل كوضع أصحاب هيدا ودني من سكولنا كوضع عياري دقموين كوضع عياري اسكو مقالة هدنا قبل هان لو وضع حريي ما يلا كلا دمن وضع سفري ضد حين نقول أن ضد كلا آد سجدو يدو تاسجرسة هدنا صاحبتنا ما خصوصية كل وسيلة رئيسة يعني عيارتي قبل كوضع صاحب بضاعها يد وسي صاحب سنتين تبدأ أساسي فهم ترتين waxaanu aada ugu sii saaxiibsanayn oo aada isku sii fahmi jirteen adiga laftaadu waad garanaysaa mar haddaad daawan jirtay shakuur buu ahaa haddii aan kaa weydiiyo su-aal shakuuroo saaxiibka aada isugu dhaweydaan aha runtii weerarkani ka wada ciyaari jirteen kubaddana si fiican sula taqaaneen 1956 shakuur waa la xidhay iyadoo markaa loo aaneynaya inuu dhaqdhaqaaqii snm dhinac kala socday markii shakuur la xidhay adigoo saaxiibkii ka agdhow adiga laftaada miyaanay arrintaasi warwar kugu beerin warwar bay igu beertay oo dee saaxiibkayoo la xidhay buu ahaa midda kale ciyaartooygu iskuulka ferjulay markaan ku xareysanay xilliga aan alimitadu jirin ciyaartooygu iska soo yaro bixi jireen ilaa biibsiga meelahaas iska soo yaragaa jireen majabaxsi marka aniga waxaa lagu yidhi ma bixi kartidba ya adna waa lagu xidhayaa haddaad baxdo ya oo
si gaadmaa shukuur markii hore lagu kaxeeyey marka dambe ciyaartoyga waa la ilaalinayaa oo yaa haddii dibadda aad u baxdo yaa waa lagu qabanayaa marka alimitadana dee ciyaartoyga aad la socotaa markaa ma bixi kartid baa laygu yidhi yaa wuxuu iska ahaa xadhig iska nooc kale ahoo aad bartaa dhaafin marka aad inta badan aad la sheekeysanayo ciyaartooygiinii hore ee isku xilliga haydaan waxay aada uga sheekeeyaan hogaamintii ilaaha u naxariistaya kabtanka cabdulaahi daahir idar ay aada uga sheekeeyaan maxaad ka xasuusataa dabeecadihii iyo hogaamintii marka lagu jiray garoonka dhexdiisa iyo marka garoonka dibaddiisa laga joogaba maxaad ka xasuusataa allah u naxariistay marxuumka allah u naxariistay cabdulaahi daahir idar wuxuu ahaa kabtan aada iyo aada u qiimo badan haddii gudaha la joogo haddii dibadda la joogo kabtan aada iyo aada runtii aada soranayso kabtan waaba ka sarreeyaaba waa madaxda oo marka anagu aan ardayda dugsiyada sare ahayn isaga wuxuu ahaa jaamici ya markaa ninkaasi wuxuu ahaa nin aada iyo aada u qiimo badan aada iyo aada u dabiicad wanaagsan ilaahay naxariista jannaa ka waraabiye aada iyo aada u firfircoon ya allah u naxariistay cabdulaahi dahar markii somalilan wadankeena aynu dib ugu soo noqonay tartamaa loo qaban jiray lagu xuso oo dhowr koob baa la dhigay mid baan xasuustaa dhabba laftiisu dhigay 1998 December finalkiisa la ciyaaray in la soo celiyo tartankaa lagu xusayo halyiga ka baxay bahda sportska ka baxay la soo celiyo sidoo kale la xuso ciyaartoy kaloo qiimo badan baa inaga baxay Sacad Maxamed Share ugu dambeeyay allah u naxariistay waxaa ka mid ah allah u naxariistay dheereeye wargabar qiimo laha dhammaantood ahaa ragga inagoo markasta ilaahay naxariis u weydiinayna haddana in bahda sportska la xuso oo tartana loo qabto oo garoomo loogu magac daro sidee maxamed kuula muuqataa si fiican bay la muuqataa in ciyaartoyga laga baxay cabdulaahi daahir allah yarxama Sacad Maxamed Shire iyo maxamed maxamuud dheereeye intaba waan jecelahay in dib loo soo celiyo tartanadii loo qaban jiray lagu magac dari jiray in la soo celiyaa aada iyo aad baan u jecelahay maanta haddii tusaale ahaan maxamed oo lagu yidhaahdo kubad baad ciyaaraysaa 11 laacib marka lagu daro adigoo number 11 ama tambadhe 10 laacib ee kale soo xulan lahayd aad oran lahayd ka barbar ciyaaraan aad yani niyadda ku haysaa waa kuweebad u malaynaysaa tobanka laacib aan soo xulan lahaa maxaa tababaraha marka lagu daro waxa weeyaan waa tababarahaygii afri statekii markaan koobka soo qaadnay iyo 11kii ciyaartay finalka aan koobka soo wada qaadnay ciyaartoy kale waxaa jiray 60 nooc oo kale markuu jilba ka dhaawacmay uu ka baxay ciyaartoy kale soo galay xasan fiish ayaa ka mid ah maxamed cali xagaah oo isna markii dambe kusoo biiray waan ciyaartoygaasaan soo xulan lahaa laakiin afri statekii nimankii koobka aan soo wada qaadnay ayaa tiimkayga ma yeelin kartaa positionskii kala hayeen waan yeelin karaa position kala hayeen waa golole ismaashiine lamber 2 allah yarxama Sacad Maxamed Shire lamber 3 maxamed jaamac maxamed cawaale jamaame lamber 4 kabtankii allah u naxariistay cabdulaahi daahir idar lamber 5 maxamed maxamuud diradhaba lamber 6 deeq cabdulaahi saban lamber 7 maxamed axmed ismaaciil shakuur lamber 8 faad cabdulaahi xuseen xamari faajeesto lamber 9 dheereeye marna nagiib isbedeli jiray lamber 10 sitiin nuux axmed lamber 11 oo aniga maxamed aad baad mahadsantay taariikh aada u qiimo badan baad kubadda cagta ku lahayd ilaa imikanaad ku leedahay oo aan xalqad keliya iyo kulan keliyata lagu soo koobi karin anigoo ka xun maanta inaynaan hayn video aynu daawanno oo maaragtay dib loo daawan karo haddana taariikh waxa aan cid gaadhi aanay jirin ayaad adigay saaxiibadaa ku lahaydeen waxaa muuqata baahi weyn oo tiimkiina inta ka joogta iminka hargeysa ee ilaahay subxana watacaala yani ku arsaaqay inay maanta noolaadaan muxuu ahayey baahi weyn oo bahda sportska waliba kubadda cagto ay idiin qabto hadday maamul tahay hadday coaching iyo tababar tahay marna
ma ku fikirtay inaad ama maamul kusoo biirto ama xagga tababarka? waan isku dayey xagga tababarka iyadoo wadanku de iska aanu luga saa fiican ba ku taagnayn oo adigu meelaha aan ciyaarahaba allahu naxariistay sacad maxamed shire oo gurigiisu xafiis u yahay oo isagu dhalinyarada koobabka u qabto ayaan isku dayey inaan dhalinyaro soo saaro weliba kuwa xaafadda ka mid ah garoonka imka gacmo dheere 12 Oktoobar la odhan jiray. walaa ciyaartoygii aan soo saaray qaarkood way aflixeen oo waxay ku farxaan baa ka mid ahaa abiib baa ka mid ahaa xirsi baa ka mid ahaa mushaar bay ku qaateen. koox kaloo waxaa jirta iyaduna aan sameeyey daabshil mar uu isku dayay inuu koox sameeyo uu ii yeedhay aan kooxdii u sameeyey oo yaasiin abayara iyo cabdiqaadir uu ku jiray olol ninka yar cabdiqaadir la yidhaaho olol walaalkii aan kusoo daray. inta kale seera b bay ahaayeen oo kusoo dhex tuuray MBBdii iyo NDCdii iyo qolooyinkii waaweynaa ayaan kusoo dhex tuuray iyagoo wada yaryar way la dhigeen aan ku weli iyagoo 9 bilood bay ku dhasheen iduguna 9 bilood xirfadna waad leediin magaca ka baqanina ya way anaga magac laga baqan jiray markaan gacliba ciyaarina anagoo xer gobola markaas saasaan haddii ilaahay idhaahdo 8 bishan ku jirno waxaa bilaabmaya koobkii gobolada. marka koobkii gobolada la yidhahdo waa markaba waa laydin xasuusanay idinka laftiisa taarikh hore xasuusansaan. waxaa 14 gobol baa ciyaaraya Somaliland. yaad taageersan tahay ama aad jeclaan lahayd inay qaadaan koobkan? waxaan taageersanahay gobolkii aanu ciyaarayay waqtigaa oo imika ilaa 4-5 gobola intaba waan taageersanahay. waa gobolka saaxil, gobolka hawd, gobolka maroodi jeex, gobolka gabiiley iyo boorame iyo selal. lixbuu kala baxay, 6 gobolba waan taageersanaya. kiin qaadaba kaygii. sidaad sheegtay maxamed oo imika waxaad taageersan tahay gobolkii waqooyi galbeed oo imika u kala baxay 6 gobol oo ah muxuu ahaayey selal iyo awdal iyo gabiiley iyo maroodi jeex iyo hawd iyo saaxil. 6daas u kala baxay, laakiin marka hore wuxuu ahaa hal gobol. marka adiga kii ku qaadaaba waa kii kale ku yahay. aad baad mahadsan tahay maxamed jahre, aad baan kugu mahadnaqayaa sababta codsigayga. daawadayaal intaynu dib isugu soo laabanayno waa tiimka Adow Football Show. macalinkayga ama saaxiibkay maxamed jahir, jamaal jante iyo maxamed hemajes filim qaadahayga iyo anigu khadar xaaji sifo dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi. maasha allah, barnaamijkaas waxaan aada u rajeynaya inaad ka hesheen, waayo waa barnaamij aadan odhan karo ugu xiisa badnaa. barnaamijyadii aanu soo daynayna kuwa ugu xiisa badnaa uu ku jiray. insha allah qaar badan oo kale waanu soo wadnaa. marka waxaan idin leeyahay marka labaad horta waxaan u mahadnaqayaa mar kale maxamed gahir oo noo suurageliyay barnaamijkaas inuu noqono kooxdii ugu horeysay ee ka qaada barnaamij noocaas oo kale ah. marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dee kooxdayda hirgelisay inay barnaamijkaas soo helaan maxamed dhegta soo qabatay waa khadar iyo maxamed iyo jamaal. marka saddexaad waxaan idin leeyahay dhalinyartii hore iyo dhalinyartii dambe iyo kuwa hadda ciyaaraba barnaamijka haddaad doonaysa inaad kasoo qayb gashaan nala soo xidhiidha. khadar ciddii khadar ku xidhan khadar la xidhiidho, ciddii jamaal ku xidhan jamaal la xidhiidho, ciddii maxamed ku xidhan sidoo kale maxamed la xidhiidho. ciddii showga si fiican ugu xidhan commentka kasoo bixisaana ana la soo xidhiidho aaga football show. insha allah commentka nagula soo xidhiidhaan. barnaamijkuna waa barnaamijkiiniye sii hirgeliyo sii sheergareeyo, wixii dhaliilo amba wixii tusaale ah noo soo jeediya. wixii kale ammaanana kolley aad baad ugu mahadsantihin, waanu idinka qaadanaynaa. dhalinyaroy waxaan idin leenahay waa aaga football show oo idin leh kulan dambe oo xiise leh.